السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي soo dhawaada meel walba joogtiin channelka daawanaysiin waa channelka Dr. Saddam Hussein maanta waxaan idin wadaa 5 wax aad sameyn kartid ama 5 shay aad sameyn kartid oo looga tirgalay maaragtay hindahaaga aragga maaragtay u yeelayo waxyaalo badan ka kobcinayo dhanka hindaha araggana xoojinayo kusoo dhawaada fadlan channelka daawanaysiin waa channelka Dr. Saddam Hussein hakiilowna channelka subscribe like iyo share-ka arrinta koowaad waxa waaye waa in aad badsatid waxa loo yaqaano vitaminada waxa waaye waxyaalaha ka kobcinayo vitaminadani waa inaad vitaminada kamidka ah sida maaragtay vitaminka loo yaqaano zinkiga vitaminka maaragtay B12ka vitaminka B1ka iyo B9ka vitaminada oo idil waa inaad badsatid sida vitamin A-ga camal inaad badsatid muhiimada shaygani waxa waaye vitamin A-ga waxa uu ka kobcinaya aragga hindaha buu ku darayaa sidoo kale vitaminada oo combined ka ah waa inaad qaadatid kani wuxuu ka kobcinayaan sidoo kale aragga hindaha waxa waaye qofka waxa muhiim ku ah oo mar walba araggiisa maaragtay hadii uu dhacifo oo dhibaatooyin badan uu kala kulmayo aragga marka hadad badisid oo maaragtay vitaminada aad kula dadaashid waxaad la kulmaysaa inuu araggaagiina maaragtay uu sii xoogsanayo shayga labaad waxa waaye waxa loo yaqaano carotenoidska waxa waaye waxyaabo oo a lot of nutrients badan laga helo nutrientska waxa waaye macdanta waxyaalo badan laga helo waayo waxyaalahan waxa loo yaqaano carotenoidka marka intee laga helaa macdantani badi waxa laga helaa sida waxa loo yaqaano green leaveska waxa waaye qudaarta oo caleenta oo maaragtay aad badsatid caleentani way kala duwan tahay waxyaalo badan bay kala noqon karaan laakiin gaar ahaan cunadaadi waa inaad caleenta aad u badisad caleenta aad badsatid waxaad isku arkaysaa aragga hindahan inuu ku darsada caleentani waxaad ka helaysaa macdan badan oo kala duwan mar walba isku day sidii caleentani aad ku badsan lahayd arrinta saddexaad waxa waaye waxa loo yaqaano 2020 rule-ka 2020 rule-ka waxa waaye waxyaabaha oo ka kobcinayo marka aad telefonka aad zaid aad u fiirsid telefonka aad hindaha aad ku badisid ama computer qof xafiis fadhi hadaa tahay aad hindaha aad ku badisid maaragtay computerka ama telefonkii aad zaid aad u fiirisid tani waxay ku keenaysaa hindihii inay soo guduutaan oo maaragtay waxa loo yaqaano xididada yaryar oo hindaha ku jiro inay dilaacaan oo hindihii guduud badan aad isku aragtid oo idil ay ku guduutaan tani marka waxa ay ku keenaysaa waxyaabo badan tani waxay ka qayb qaadanaysaa in maaragtay hindihii araggooda uu dhif uu ku sii noqdo mar walba waqti walba marka 2020 rule-ku waa maxay 2020 rule-ku waxa waaye waa in aad 20 daqiiqo ama hadii telefonka aad fiirisid waa in aad 20 second oo maaragtay telefonka meel kale aad ka fiirinaysid oo 20 feet away ah oo meel 20 feet camal ah aad fiirin kartid 20kaasi feet waxaad fiirinaysaa meesha ayada ah oo 20 daqiiqo 20 second ah shayga afraad oo ka caawinayo waxa waaye waa in aad hindahaaga aad ka ilaalisid wax maaragtay gacmahaaga aad ka ilaalisid hindaha aad ka ilaalisid waxa waaye germs badan oo maaragtay gacmahaaga ay kaari gareynayaan oo maaragtay gacmahaaga laga helo ama gacmahaaga meel walba ay taabanayaan waqti walba marka kanno uma fiicno germiskan hindaha ma waqti walba hadaad taabatid hindahaaga dad qof aad tahay oo hindihiisa gacmaha la aadayo waqti walba iska dhaxtir arintani maadaama ay maaragtay ku wanaagsanaan waqti walba isku day inaad gacmahaaga meertid oo dhaqdid waqti walba tani waxay ka kobcinaysaa germska badan baa ka yaraanayo oo hindahana maaragtay dhaawac badan u gaarsinayo oo sidoo kale infection ku ridayo hindahaaga marka hadii aad ku dadaashid arintan aan ku sheegay aad ku dadaashid waxa ku soo ziyaadayso in maaragtay hindihiina uu maaragtay caafimaadkooda uu ziyaado oo sidoo kalena maaragtay waxyaalo badan aad kala kulantid oo maaragtay hindahaagana ay xoojintooda ay sii bataan hindaha waxa waaye waxyaabaha organska oo very sensitive ka ah oo maaragtay qofka very kale u ah oo maaragtay muhiim ku ah hindahaaga marka hadaad la dadaashid caafimaadkooda waxa waaye waxyaabaha oo ugu muhiimsan oo jirkaaga oo idil ayay ku jirto dambeyntii shayga shanaad waxa waaye waa inaad isku daydid in sidii maaragtay aad ku xiran lahayd glasseska ama okiyalka hadii aad hinda xanuun aad qabtid okiyalka waxyaalo badan buu ka caawinayaa waxa uu ka caawinayaa hindihii inuu aftiinka badanayo uu ka yareeyo sidoo kale waxa uu ka caawinayaa hadii aad qof hindaha maaragtay dhifka tahay oo hindihii aragga uu kugu yaryahay aragga buu ku ziyaadinayaa sidoo kale waxa jirta okiyalo maaragtay looga tirgalay hindaha inuu ku ilaaliyo okiyaladani way kala duwan yihiin magacyaal badan bay kala yihiin kuwa waxa jirta oo aragga
qoraxda badan ka ilaalinaya, kuwa waxaa jirto inay ka ilaaliyaan waxa loo yaqaano aragga ay kugu daraan, kuwana waxaa jirta aragga kusoo dhaweynayo. Marka okiyalayaashan waqti walba eegana isku day haddii aad hindhaha aad ka xanuunsan tahay in aad hindhahaaga aragoodii aad siyaadisid, laakiin waqti walba waxaa muhiimsan hindhahaaga in aad ka fikirtid. Hindhaha waxaa waaye waxyaabaha muhiimka ah jirka. Isku day in aad hindhahaaga kobcitaankooda iyo maaragtay dadaalka hindhahaaga sidaad ugu dadaali lahayd oo hindhahaaga fiicnaantood sidaad ugu dadaali lahayd aad ku tala jirtid. Waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanadka barnaamijka. Waxaan idin codsanayaa fadlan subscribe, like, share-ka inaad channelka aad saartiin. Waxaan idin rajaynayaa sidaas iyo nabadgelyo.